Raxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Ku dhawaada saaxiibayaal, dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena Fasuun. Maalin wanaagsan saaxiibayaal. Maanta muuqaalkeena waxaan kuga hadli doonaa sidaad u quruxsan lahayd chatskaaga ama chatiska aad ku trade gareynaysay. Chatiska waxay noqon doontaa markii ugu horeysay inaad sameynaysay ama in muddo mida isticmaalaysaa tahay oo aad rabtid inaad update ku samaysay. Maxaa yeelay indhaha sidooda waxaa fiican in marba wax cabaar ay wax la qabsadaan. So marka waxaan maanta marka chatskayga ayaan qurxin doonaa. Adina waxaan kuu rajeynayaa sidaan oo kale inaad u quruxsatid oo update aa mar walba ku samaysay. Marka koowaad si aad u quruxsatid chatskayga, hadda aniga kayga everything wuu ii samaysan yahay. Waxaan isku dayaa marka wax walbo inaan meesha ka remove gareeyo si bilaaw ilaa iyo dhammaad aan iskula socono. So marka wax walbo oo inta igu jiro iyagana waan ka saarayaa si aad u ogaatid wax badan. Okay, inta waxaa igu jiro brushkan wax qorqoray iyo arrowgan, rectangle-ka iyo path-kan. Okay, taxiga intuu ku jiraa, taxiga isagana iska cun iyo color-kan iyo price level-ka. Ku soo haray this long-kii iyo short position-ka ama trade qaabka u galisay. Final one is this. Okay, midka ugu dambeeyo. Midka ugu dambeeya isagana meesha ayaan ka saaraynaa. Where is it? Let's wait it. Price range-ga waa kana arrowga ka qaadaynaa. Dhammaan hadda saa u jeediin okay, hadda saa u wada joogtiin chatskayga hadda wax dhan ma ku yaalo. Marka waxaan rabaa inaan qurxiyo marka isla socod wanaagsan. Marka koowaad waxaad samaynaysaa right click ayaa leedahay qaybta kombiyuutarka. Kadib meeshaan oo setting ay ku qoran tahay ayaa waxaan rajeynayaa in loo jeedo meeshaas setting-ka ayaa ku dhufanaysaa. Kadib setting-ka markaa ku dhufatid waxaa kusoo bixi doona inta. Shaqada meesha laga qabanaya marka waa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6dan qodob ayaa waxaan sameynaynaa inaan wax ka saxno aan ka toosino. So marka mid mid ayaan u dul istaagi doonaa, aan u qurxin doonaa hadduu Alle idmo. Marka koowaad chatskayga hadda saa u jeedtiin qaybta aan wax ka qurxinaya halkan waa. Marka koowaad horta waxaa la rabaa symboliska calaamadaha oo kale oo trade tusinayo oo kale symboliska kuwaana la dhahaa oo midkii buy i tusaayo iyo midkii sell i tusaayo. So marka koowaad isaga ayaan qurxin doonaa. Body-ga waa ujeedaa hadda kalar cagaar ah iyo guduud ay saaran. Border-kan sidoo kale, wicks-koodana sidoo kale. Waxaan rabaa inaa kalarkan maadaama aan muddo isticmaalayo, waxaan rabaa inaan iska beddelo ama aad doonaysid inaad iska bedesho. Marka meeshaas kalarka ayaa ku dhufanaysaa. Kalarka markaa ku dhufatid wuxuu ku siinayaa marka option badan oo ku siinayaa kalar eh. Kalar allaala kalarkii markaas adiga aa u aragtid inuu ku qurxoon yahay ayaad isticmaalaysaa. Haddaad kan u aragtid, haddaad kan u aragtid, haddii kan uu ku cajabiyo, kan hadduu ku cajabiyo. So marka kalar allaala kalarkii markaas ku cajabiyo ayaad dooranaysaa. Haddaan oo kale kalar i cajabiyo raadsanaa and this is not good. Still not. Ani hadda waxaan dooranaa ku update gareysanaa kalarkaas oo cagaarka oo biyo biyo ah ka dhiganaa. Cagaarkaas aa ka dhigtay. Guduudka marka uu imaanaa isagana something like this. Marka muhiim maahan kalar allaala kalarka ani aa ka dhigto inaa adi aa ka dhigatid. Muhiimaddu waxay tahay inaa update aa ku samaysatid oo keliya. Marka hadda kalarkan kalar aan ku beddelaa raadinaye. Kan guduudka zaid maahan. This cagaar iyo cagaar ma is qaadanayaan. Kalarkan kalar u match gareynaya. Guduudkan ayaa qaadanaya.
cagaarkan xoogaa zaid oo biya biya u yahay isaga xoogaa fiiq eh, kii hore xoogaa u dhow yahay. Marka waxaan rabaa aniga kii hore wax yar oo ka duwan inaan helo. So this buluugan aan isticmaalaa, kana marka number mid u dhow ayaa raadinaa. Inta badan cells-ka kuwa ee guduudka ay ku qurxoon yihiin saas leeyahay. Labadan ayaa u arkay in aniga jadskeyga aan ku update gareysto. So marka meeshan capacity-ga waaye, capacity wuxuu kuu sheegaya marka sheyga haddaa inta taabatid guduudkii inta ku jiray waxay noqonayaan kuwo daciif eh body-ga. Marka iyaga waxaa la rabaa inaad tiq ka dhigatid sidooda capacity-ga ku ahaado. Secondly waxaa imaanaysaa borders, borders waxaa la dhahaa meeshan oo thread ama maxaa la dhahaa candle-iska geesihiisas qaybta hore qaybtaas oo wicks hore imaane. Inta adiga circle meelaha waxyaalaha ku hareeraysan ayaa waxaa la dhahaa border-ka. So iyagana waxaa la rabaa inaa update aad ku sameysid. So marka waxaa la rabaa marka kalarka ani aa ka dhigto oo kale kan kaa ka dhigay inaa ayakana aa ka dhigo border-ka si wixii isku match gareeyaan. So marka hadda kan aan ka dhigtay border-kiisana okay. Kan guduudkan waaye isagana waxaan ka dhigi doonaa isla guduudkaas oo kale mid waaye aan ka dhigay border-kii. And then waxaa imaanaya wicks-ka, wicks-ka waxaa la dhahaa kuwan oo marka candle-ka oo xirmo oo kale haduu rejection ku yimaado kale. Haddaad tigta hadda aad ka qaado wax wicks ama wax rejection eh ma ujeedid. So marka mar walbo oo rejection-ka aa heshiin waxaa waaye wax badan ayuu ku tusinayaa oo ah candle-kaas siduu u xirmay iyo sidii oo qaabkaas uu ku tusin doonaa. So markaad tigta ka qaado waxaa aragtaa inuu meesha ka baxay oo soo galeen. Tigta markaad ka qaado waa ujeedaa wax oo maxaa la dhahaa rejection oo candle-iska malahan. So isagana isla update garee oo kaliya kalarka rabtid aad ka dhigi kartaa markaas guduud hadaa ka wada dhigatid, hadaa rabtid madow waa ka wada dhigan kartaa. Wicks-ka isaga wuxuu ku qurxoon yahay inaa labadooda hal kalar aad ka wada dhigtid si ay waxaaga iskugu noqdaan wax isku match gareysan. So marka wicks-ka hada waa ujeedaa madow aa ka wada hadaa rabtid kalarkan waa ka wada kan waa bedeli kartaa kana waa bedeli kartaa. Laakin waxaa qurxoon inaa labadooda hal kalar aad ka wada dhigatid. Isagana capacity-giisa sidiisa ayaad u daynaysaa waxba ma ka bedeleysid. Qaybta markaas kasoo dhamaatay waxaad sameyni doontaa qaybtan oo last-igan waxaa waaye haday tig kuu saarantahay waa qaade maxaa yeelay waxay ku tusin doontaa line-kaas oo ah xariiqinta price-ka meesha uu maraayo. Ayadana tig ka qaad. Previous daily close-kan waxyaalahan kan higher iyo low uu kutusaa hadaa saaratid meesha ugu sareeyo uu tagay iyo meesha ugu hooseeyo isagana tig ka qaado. Soo soco qaybtan marka default-iga ayada sideeda iska ahaato. Qaybtan oo muhiimka marka waxaa waaye time zone-ka waa time-ka uu ku tusi doono maxaa la dhahaa time-ka uu ku tusin doono oo charts-kaaga inuu rabo inuu ku tuso. So hadda waa ujeedaa Istanbul aa ii saaran maxaa yeelay maadaama Muqdisho meeshan ba ka heleysid laakin waxaa la rabaa zones u dhow oo +3 eh inay si saacadaada oo charts-ka u qaato. Maxaa yeelay hadda aniga Nairobi oo kale hadaa doorto isku waqti aan nahnay +3 aan nahnay aan iskula jirnaa. So marka +3 markaan dhaho waxaa ujeedaa inta 2 saac iyo 19 daqiiqo waaye. Kombiyuutarkeyna waxaa waaye 2 saac iyo 19 daqiiqo. Inta maxaa la dhahaa taleefankana isla xiligaas uu sheegi doonaa. So time zone-ka marka aad ay muhiim u tahay maxaa yeelay waa charts-kaaga waxaa lagu base gareynaa saacada markaas tahay. Tusaale marka haddii aniga joogo kale +3 ay tahay Muqdisho haddii aad ka dhigto wadan oo tusaale oo kale Johannesburg oo kale +2 oo kale ka dhigto. Marka charts-keyga waqtiga la sheegaayo waa 1 saac iyo 19 daqiiqa la sheegaya. Waqtiga la joogana waa 2 saac iyo 19 so marka isku mid maahan. Mar walbo waxaa qurxoon in charts-kaaga aad ku dhiirigelisid saacadaada kombiyuutarka ama meesha aad joogtid xiliga ay tahay. So hadda aniga +3 Nairobi aan ka dhiganaa. Intaas markaan dhameeyo okay aan leeyahay. Intaas markaad dhameysid hadaad okay inaad dhahdid shaqada dhan aad dhameyso ka wadaa. Marka waxaad sameyn doontaa isla sidii usoo noqon doontaa hal mar aa okay wada dhaheyna hadhow. Qaybtan symbol-iska markaan saan u saxo waxaa imaanaya status line-ka oo maxaa la dhahaa logo symbol-kan iyo waxyaalahan uu kutusaa. Hadda waa ujeedaa logo symbol-ka waxaa la dhahaa lacagta wadankaas oo kale logadiisa meesha laga soo muujiyo oo kale. Maadaama hadda aniga JBP USD ii dooran tahay wuxuu i tusaa marka logo i tusaa marka xoogaa
Tan ba iga noqotay muddo isticmaala marka waxaan rabaa inaan asagana iska update gareeyo, loogada iskaga tir. Title-ka waxaa waaye description-ka lacagta oo ku tusaa, magaca lacagta aad isticmaaleyso oo kuu sheegaa JPP, USD oo ku tusaa. Een, kanna waxaa waa OHLZ-gan value-ga waa waxa price-ka inta maraayo iyo waxaas uu kutusaa asagana muhiim maahan. Then car changes-kan waxaa waaye this waaye marka tigta laga qaado ujeedada changes-ka iska bedelo isagana iskaga qaad, wax muhiim ah ma lahan. Waxaan ku soo haray background-iga ku soo haray background-igayga hadda aniga caddaan oo tiq ayaa kasii dhigan doonaa background-iga. Line-ka status line-ka intaasaa ka saxan doonaa. Kadib scale-kan ayaa imaan doonaa. Scale-kan isagana waxaan ka sixi doonaa symbol name-ka magaca lacagta waaye isaga oo inta kasoo muuqanayso ma jeedido. JPPO sidoo kusaa ayada ma doonayo waasa iska qaadi doonaa ayadana. Symbol price-ka waxaa waaye price-kan oo kutuu sheegaa oo qiimaha markaas uu maraayo ama qiimaha markaas uu joogo kale. Isagana muhiim maahan waa iska qaadi kartaa. Haddaa rabtina waa furan kartaa. Laakiin inaa iska saaratid ayaa mar walba iska qurxoon kan. Kan ayaa ku soo Nova Living-kan isagana tigtan iskaga qaad. Tigtiisa sidiisa ku ahaado. Mountain down power-kan sidiisa ku ahaado iyo plus button-kan. So marka waa soo soconaysaa days of week levels-kan date format-ka waa usbuucley waxaas uu ku sheegaa 24 hours time zone-ka waaye isaga muhiim maahan. Qaybtan canvas-ka imaanaynaa. Canvas-ka maxaa waaye isaga trading view-ga mar walba update ayaa lagu sameeyaa. Meeshan canvas-ka waxaa laga yaabaa appearance iyo mar ahaan jirtay laakiin hadda canvas ayaa kasoo dhigeen. So marka isaga maxaa ka saxaa marka kow waxaan ka sixi doonaa meeshan waxaa waaye color-ka aad isticmaaleysi ayuu ku tahay. Grading maxaa waaye sidiisa waa wax laba color ah inaad ka dhigid. Tusaale kale hadda aniga kan color-ka aan ka dhigo waa ujeedaa wax gradient oo noqday. Gradient waxaa waaye waa laba color oo la isku match gareynayo waa marka. So marka isaga mar walba muhiim maahan. Mar walba waxaa ku fiican solid inuu noqdo. Solid markuu ku noqdo color-ka marka caddaanka waa kaas. Haddaa aad rabto madow waa ka dhigan kartaa. Laakiin mar walba waxaa qurxoon solid haddaaba sameysanaysid inaad color-ka white-ka aad ka dhigatid si wax walba oo markaas meesha ka dhacayo aad u ogaatid. Okay, qaybtaas markaad saxdid qaybtan kale oo green lines-kan waxaa laga wadaa vertical-ka waxaa laga yaabaa markii computer-ka ay kow uu cusub yahay oo kale in vertical-ka oo inta uu ku jiro oo kale oo line san ay ku yihiin. Tusaale kale hadda vertical-ka markaan dhaho oo capacity-giisa hadda inta ewer waaye waxay soo muuqanayaan. Verticals kuwana laymankan oo charts-ka so marka aniga kuwan ma doonayo sameynaya marka iyaga dhan ayaa meesha ka saari doonaa. Ano calaamadaas capacity-giisa ayaa yareyn doonaa. Horizontal-kan sidoo kale waaye ujeedaa capacity-giisa hadda ani ii yareyd maadaama markii ugu horeysay ayan ahayn oo hore u isticmaalaya trading view-gan. Laakiin adiga haddaa tahay markii ugu horeyso kale waxaa laga yaabaa inuu wax sidaan oo kale ka yahay. Si marka waxaa sameynaya horizontal-ka ay markaa imaatid meeshan capacity-giisa ayaa waxaa sameynaya waa yareyna oo keliya. Haddii kale isagoo saan ah ku aadaarto waxaad sameyn kartaa color caddaan oo keliya ayaa ka dhigi kartaa si wixii dhan ay meesha uga baxaan. Haddii ay kuu fududahay oo aadan rabinba inaad isdhibin isagoo color-kiisa hore wato keliya capacity-ga yaree. Aniga hadda waxaan iska sameynaynaa white aa iska dhiganaynaa already wuxuu noqonayaa kii caddaan. Vertical-kan isagana sidoo kale isagoo buuxo kale hadda waa ujeedaa wuu buuxaa. Laakiin haddaa color-kan guud ka dhigi waa sii arki doontaa. Laakiin haddaa white-ka aa ka dhigo wuxuu noqon doonaa shaashadii ayuu la mid noqon doonaa. Qaybtaas markaad saas u socotid watermark-gan waxaa waaye wuxuu kuu sheegaa inta badan waxaa ku aragtay umaleynaya word-ka oo kale markii wax la qoraayo oo kale watermark aa loo sameyn jiray oo ah wixii qofka markaas iska leh oo kale ama waxaas waxa ay yihiin loogada daarta saarane. So marka hadda watermark-ga wuu noo saaran yahay anaga tigaa noo saaran maxaa yeelay watermark waa meeshan wax ku qoran oo ah JPP USD this waxaa la dhahaa watermark. So marka aniga waxaan sameynaa maanta waa iska qaadi doonaa iyaga dhan ma isticmaali dooni. Okay, qaybtaas markaa iska sameysid oo watermark aad ka qaadatid kana isla capacity-gi waaye ujeedado watermark isaga oo wato haddaa rabtid sida kuu sheegayay tigta markaa ka qaadi isaga dhan aa kaa baxaayo. Haddii kale isagoo tigta kuu saaran ayaa waxaad sameyn kartaa isagoo saan ah caddaan aa ka dhiganaya automatically
wuu ka bixi doonaa meesha. Kana kalarkiisa saarid u badi, maxaa yeelay sababta caddaanka iyo caddaan way isqarinayaan maxaa yeelay shaashadeeda gebi ahaanteedbaba waa mid cad. Marka shay walba oo cad laga dhigay markaas waxay samaynayaan way qarinayaan marka. So marka saas waaye. Kan crush line waaye oo lines waa isaga oo wax lagu sameeyo, isagana sidiisa iska dhaaf. Watermark markaad iska saxdi, kadib waxaa ku imaanaysaa scaleskan waxaa waaye meeshaan ay ku qoran tahay taxiga oo kale qoraalka mar walba aa qoraysi farta uu noqon doono. Hadda aniga qoraalka mar walba aa qoraayo wuxuu kusoo bixi doonaa kalar madow ah. Tusaale kale hadda qoraalka waa kanaa, markaa qoraayo kale JB mar walba wuxuu kusoo bixi doonaa ma ujeediyow 14 uu yahay hadda. Marka scaleka haddaa arkaysay oo 12 ku base garaysnay kanoo kale laga wadaa ma fahmino. Marka muhiimada marka waxay tahay inaan isaga aan fahanno, isagana marka waa in taxiga uu ku ahaado 12 lineskana lineska xariiqadan waaye. Xariiqahan ma ujeedida oo hoos iyo kor ka jarjaro markaa oo buuxiyey way soo koreen. Caddaanka iyo haddaa ka dhigin waxay samaynayaan way ka baxayaan. Isagana caddaankiisa ku ahaado navigationkan sidiisa ku ahaado buttonka iyo panelka waaye iyo painka. Margin-kana kusoo haray margin-kan topka waa inuu 10 ku ahaadaa, intana button-kana 8 kana 10 maxaa yeelay waa wax oo default oo isaga ku imaado ayaa oo buuxinaa. Qaybtan trending aa imaanay, trending markaa imaatay meeshaan hadda buy and sell button ay ku qoran tahay waa ujeedaa waa tan. Qiimaha markaas uu marayo ayuu kuu sheegay. Haddaa rabtid waa saaranay, haddaa rabtidna waa ka qaadanay. So marka waxaa qurxoon inaa ku tusinba buy iyo sell inaa isaga iskaga qaadiyo oo kale. Haddaa rabtid oo rabtid inaa aragtid wixii buy iyo wixii sell eh, price-ka sell-ka iyo price-ka buy-ga haddaa rabtid inaa aragtid waa saaran kartaa, haddii kale iska qaad. So marka qaybtan oo position-ka oo profit iyo loss-ka oo kale si ay tika kuu saarnaato. Orderskan iyo price profit loss-ka sidiisa kuwaan ayagana haddaa rabtid tigta waa ka qaadi kartaa wax ma ujeedi unsaved. Marka haddaa rabtid tigta waa ka qaadi kartaa, haddaa rabtidna waa saaran kartaa. Appearance-ga waa waxa meesha ay kasoo muuqanayaan waa. Waxaa kuu qurxoon iyaga dhan haddaa rabtid waa iska qaadi kartaa, haddaa rabtidna waa iska dayn kartaa. So aniga inaa iska daysto aya ii qurxoon. Kadib okay events-ka imaani doonaa. Events-ka waa wixii markaas oo economic-ka news-ka waxyaalahaas latest news mind-iga oo kale iyo alt-rate-ka oo kale waxyaalahaas waa iska wixii news waaye waa furan kartaa, haddaa rabtidna waa iska qaadi kartaa. So marka hadda shaashadeyda markii koowaad okay markaan dhaho markii hore iyo markaan isku mid maaha maaho. Oo hadda xoogaa sidii hore way ka qurxoon tahay maxaa yeelay waxyaabo badan oo waxaa jiray meesha ku jirjiray oo aanan hadda ku jirin. Waxaa ujeedaa wax walba inay hadda clear ay yihiin oo kale way cad yihiin. So marka maxaa kaloo rabaa marka waxaan samayn doonaa marka toolska aad isticmaalaysay mar walba inaa inta ka raadisay oo inta aad ka fiirsay way adag tahay maaho. So waxyaalaha toolska aad ku shaqaynaysay ayaa waxaa lagaa rabaa inaa soo dhawaysato oo hal meel aad keensatay. Kow intaan ka bilaabi doonaa inta qaybtan maxaa ka isticmaalaa trend line-ka mar walba u baahanahay kow. Horizontal line-kan waa u baahanahay. Horizontal ray-gan flare-tan waa u baahanahay. Vertical-ka inta badan marmar qaar lee u baahdaa. Okay intaas saddexdaas xabaa ka helay. Next inta maxaa uga baahanahay markaas banaaji iyo waxyaalahan maba isticmaalabo. Intana patterns-kan iyo waxyaalahan ma isticmaalo. Qaybtan imaaw oo ah waxaan ka isticmaalaa long-iga iyo short-iga trade-ka oo markaa buy u qaadanayo iyo markaa sell u qaadanayo. Qaybtan kale imaaw ayagana waxaan ka isticmaalaa brush-kan oo wax qalin camal waaye. Waxaa kaloo ka isticmaalaa arrow-ga flare-ta oo kale waa isticmaalaa. Waxaa kaloo inta ka isticmaalaa rectangle-ka oo kale aad u isticmaalaa. Path-kan waxaa waaye waa arrow-gii xoogaa si kale mid mid u fiirin doonaa. Kan intaa markaas intaas ayaa ka isticmaalnaa. Qaybtan kale oo text-ka imaan doonaa text-ka isticmaalaa.
een, koladhkan waa adiga, wixii markaas tusaale oo kale, koladhka waxaa waaye kan oo kale, sheygan oo kale rabtaa inaa meel kale ku qoratid, saas oo kale aad leedahay. Cashaan taxiga oo box camal la geliye waaye. So marka, isagana waa iska soo saarnaa marmar qaar ayuu i anfici karaa. Kanna waxaa waa price level-ka waaye oo qiimaha markaas price-ka uu yahay ayuu kuu sheegi doonaa. Intaas ayaa ka isticmaalaa inta. Kan waxaa waaye log out-ka waxaa sawirtay si aysan u bixinin waaye, u bixin ayaa quful ugu xiraysaa. So marka, hadda waxyaalaha isticmaalaya intaa keensaday, kan, waa trail line-ka saa ujeedaan, suuqa markaa aadeyso suuqan up waaye oo kale. Hadaa rabtid train line-kan waxaa samayn karaa kalarkiisa oo kale intaa ka beddeli karaa. Kalar waxaa siin karaa cagaar ah, inta maxaa la dhahaa capacity-giisa waa 2BC miya 1 waa ka dhigi kartaa, daciif oo noqonaa. 3 waa kasii dhigi kartaa, waaweyn oo sii noqonaa. Oo inta badan 2giisa qurxoon saa waxa u aragti. Hadaa rabtid meeshan adoo ka beddeshay automatically setting-kiisa aad tagi kartaa, wixii waa ka sixi kartaa inta. Okay, kan waxaa waaye waa horizontal line markaa dhaheyso meeshan high waaye. Kalarkiisa isagana waa taabanaysaa, inta ayuu ku siinaya dialog box-kan uu ku siinaa. Automatically kalarkaa rabo waa ka beddeli karaa, kalarkaa rabo waa siin karaa, noocaa doono waa ka dhigi kartaa. So marka, aday kugu xirantahay iyo kalarkaa rabtid aad u sameysanaysid. Isagana meeshan, widthkiisa ama capacity-giisa ayuu kuu sheegay. 3 markaa ka dhigo xoogaa ubucdiisa way sii weynaanaysaa, 4 hadaa kasii dhigane way weynaanaya, halka 2 markaa ka dhigo ubucdiisa mid normal ay noqon karto. So marka, this maxaa waaye, waa trade-ka marka ani inaan buy u galo rabo tusaale oo kale, trade-kan markuu double bottom ii sameeyey, waxaaba arkay inuu buy sii yahay, intaa ku galaa ilaa intaa markaa dhaho. So marka isagana waxaa la rabaa waa qaybtan oo stop loss-ka iyo target-ka, ayagana kalarkeeda waa ka beddeli kartaa. Maxaa yeelay inta ayaa ku dhufanaysaa profit background-iga oo ah target-kii, kalarkan oo hadda ii yahay. Kalar kale ayaa u raadinaa. Waxoogaa meeshan hadda capacity-giisa waxaa waaye kalarka hadaa rabtid waa buuxini, hadaa rabtid mid daciif ah ayaad ka dhigi kartaa. Hadaa rabtid kalarkan ayaa ka dhige. So marka hadda aniga maadaama cagaarkan in badan aan isticmaalaye, waxaan rabaa marka, inaa xoogaa kalar kale u raadiyo oo kusoo baxaayo. Cadaankan oo kale is good waaye, capacity-giisa xoogaa yar okay waaye. Qaybta oo target-ka ama profit target-ka ahay, qaybtan waa sales background-giisa, maadaama kan oo iska ahaa inta badan, hadaa rabtid kan waa ka dhigi karaa. So marka kalaradan dhan waa options oo qofka leeyahay, isaga ayaa marka dooranayo mid allaale midii markaas oo shaashadiisa kusoo baxayso oo kale. Stop loss-keyga saas aa ka dhigtay, kalarkaan aa ka dhigay. So marka, stop loss-kaaga isagana saas ayaa u bixin kartaa. Kalarka adoo kale marka waxyaalaha daciif ka dhigaya waxaa waaye capacity-giisa hada hadaa weyneeyo saasay noqonee. Xoogaa wixii wax xoogaa iska qurxoon markaa rabo inaa ka dhigto capacity-ga ilaa adiga 45 is okay. Hadaa rabtid waa kasii wadi kartaa, cadaanka camal 30 waa gaarsiin kartaa. Okay, kan markaa ka dhigatid, target-ka isagana kalarkan kale hadaa rabtid waa kasii beddeli kartaa, kanaaba qurxoonbo. Kalarka allaale marka intaan oo kalar waa adi fiirsanay, mid allaale midii markaas oo waxaayo kusoo baxo dooqaaga ayaad dooranaysaa. Isagana 24 waaye, xoogaa yariis ku dar, 24 kiisu daay is good waaye. Midka oo profit-ka, trade markaa galaysid nashqadaan aa ka dhigatay. Waxaa kusoo haray, qaybtan isagana sales-ka sidoo kale ayadana waxaa lagaa rabaa inaa habeysatid oo kale. Maadaama kalarkan oo isagana ii yahay, marka allaale markaa sheyga ku dhufatid, dialog box-kan uu ku siinaa. Wuxuu dialog box-kan ku siinaa access oo wuxuu ku siinaa wax allaale wixii markaas aa u baahantahay oo kale inaa shaqada qabsatid. So easy waaye. Muhiimadda waxay tahay inuu qofka fahmo, maadaama stop loss-keyga, profit-ka oo ahay sorry, profit-keyga, kalarkan iyo kalarkan ayaa waxaa rabaa inaa isku mid ka dhigo. Maxaa yeelay kanaa ka dhigi maoho. So marka kan markaa ka dhigo waxaa u baahanahay marka isla stop loss-ka markii la joogana inaa isku mid ka dhigo.
ujeedo hadda target isku mid aa ka dhigay, kanne wuxuu ii joogaa TP-gay kan waay, isagana kii oo kale ayaa ka dhigi doonaa. Waa ujeedaa isku mid ayaa ka dhigay, koorka waaye, kanne koorkiisa waaye. Marka sababta isku mid iskaga dhigayso waxaa waaye in wixii ay ku noqdaan wax qurux badan oo aad u cajabiyo. Xoogaa kan Doblas kalarkiisa xoogaa kor u soo qaad ilaa iyo 30 keen. Okay, 30 isku mid waaye. Marka hadda threads-ka markaad bahasha saan u quruxsatay, waxaa kuu soo baxay marka wax qurux badan oo markaas oo indhahaagan u roon. Shaashadeeda awal markii hore see ahayd iyo hadda sidee tahay isku mid maahan, xoogaa difference weyn aa u dhexeeyo. Marka waxaa la rabaa charts-kaaga mar walba isticmaalaysid in xoogaa update aa ku samaysid si waxaaga indhahaaga mar walba ay ula qabsadaan wax cusub oo qurux badan. Charts aa bedeshay micnaheed maahan aqoonti iyo wixii, laakiin waa wax qurux badan inaa indhaha maadaama maanta oo dhan isha aa ku haynaysid, isha waxaa qurxoon marka in xoogaa wax qurux badan inay aragto oo ah clear ah. Labadan markaan kasoo baxno, kan brush-kan waxaa waaye markaa rabtid inaad wax qorto oo kale, saas oo kale waaye. Meesha laga deletedaayna meeshaan waa remove aa iska leedahay. Arrow-gan markaa rabtid inaad flare wax aad tilmaamtid oo kale, waxaa dhahdaa meeshaas oo kale oo tagaa, like this waaye. Kan rectangle-ki waaye, rectangle-ka saan oo kale aa dhigi kartaa, sidoo kale hooskaan. Rectangle marka isagana box-kan aa ku siinaa, box-kan kalarka ka bedelani kalar alaala kalarka aa rabtid. Sidoo kale isaga korkiisa ayaa laba mar wuxuu u bedeshay isaga laba mar aa click siinee. Marka uu style-kan kusoo baxo, hadaa rabtid isagoo saan automatically waxaa rabtaa inuu line-ka dhan raaco maaho, calaamadaas extend to right ayaa dhinaca oo midigta u badinee, hadaa rabtidna dhinaca bidixda ayaa u badinee, labada dhinac aa ka siinee. Inta badan aniga extend to right aa ka dhigtaa oo hal dhinac inuu ii raaco. Middle line kalarkiisa waaye, kanna background-iga waaye. Kalarada markaa waa bedeli kartaa, kalarkii markaas adiga ku anfaco ayaa ka dhigan kartaa. Hadda kan capacity-giisa aad u yaryahay, waa ujeedaa hadaa rabto saan kasii dhigo 50 aad u qurux badnaana. Isagana saas waaye. Next kan path-kan waxaa waaye markaa sawirka create-ka abuu noqday, test aa kusoo samee, and then high kaloo sameeyey, high low-ga, and then high saas oo kale markaa rabtid inaa wax ku sawirto ayaa path-kaas loo adeegsadaa. Text-ga waaba iska naqaanaa, waa wixii qoraal leh. Marka charts-ka aday kugu xirantahay saa u quruxsatid. Isaga markaa border aa u yeeli kartaa hadaa rabtid border la'aan border waxaa waaye waa sheygaas wixii ku hareeraysan. Hadaa rabtid border la'aan aa ka dhigi kartaa. Background-giisa noocaa doonto aa ka dhigi kartaa markaas, aday kugu xirantahay. Inta waxaa waaye fartaa ka badbedelee, in alaala intaa rabtid ayaad ka dhigaysaa. Kana wuxuu kuu sheegaa bold inaad ka dhigtid sheygaas inaadan bold ka dhiganin oo kale, and then okay aa leedahay. Waxaa kusoo haray qaybtan bullet-kan waxaa waaye sheyga sidoo kale meeshaan rabaa inaa xog ku qorto oo kale, text-ga oo box camal oo siinaa oo ah sheygaas tilmaamayo inaad gaarsiisto. Kan price level-ka waxaa waaye qiimaha markaas uu kuu sheegay aa dhigane, it means waxaa waaye hadduu qaado inta CGP oo kale almost high uu sii ahaan doonaa oo uptrend uu sii ahaan doonaa like this. Ama inaad dhahdid price-kan hadduu inta uu soo jibiyo oo kale, waxaa gali doonaa sell si oo meeshaan gaabkan loo soo buuxiyo ilaa iyo target-kan aan helo oo kale like this. Marka intaan waxaa waaye inta badan charts-kiisa waad arkayseen bilowgii ilaa iyo dhamaadkii waa wada qurxinay. Nashqadii hore mee nashqada kale ayaa u keenay. Markaan rabo inaad deleted hal hal hadaa u deleted mar waqti badan ma haayo. Marka waxaan sameynaa meeshaan ay ku qoran tahay delete-ka ayaa waxaan qoranaa remove all drawings. Dhamaantood waxaa sameeyey hal mar ayaa iska remove gareeyey. Marka waxaan rajeynayaa marka inaad charts-ka sida loo quruxsado iyo dhammaantiin inaad wada fahanteen. Charts-kaagana aad wada quruxsan doonto hadduu Alle idmo insha Allah. Inta aan ku kulmi doono muuqaalka xigo, waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waxaan ku xasuusin doonaa